madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa bishan 14 subaxnimo ka ambabaxay gegada dayuuradaha ee magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada madaxda jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha iyo wafdigiisu waxa ay kaga qayb galayeen magaalada Jabuuti shirka koowaad ee wadamada xubnaha ka ururka la dagaalanka abaaraha iyo ka hortagga dhibaatooyinka dabiiciga qolka marti sharaftay gegada dayuuradaha ayaa waraysi lagu yeeshay madaxweynaha wanaag shir madaxeedka ururka iskaashiga ee dawladaha Afrikada bari ee la dagaalanka abaaraha iyo dhibaatooyinka dabiiciga nasiib wanaag waxaanu kula kulannay qolka marti sharafta ee gegada dayuuradaha ee magaalada Muqdisho su'aalaha aanu madaxweynaha Soomaaliya Jale Siyaad weydiinay waxa kamid ahaa Jale madaxweyne wax ma nooga sheegi kartaa ahmiyadda shirkaasi iyo qodobada ugu waaweyn ee lagu soo qaaday marka horeysa waxaan urajeenaya dadka Soomaaliyeed khayr iyo barwaaqo waxaan sidii ana walba oran jiray kula talinaya ku guubaabinaya in ay danahooda qabsadaan maslaxadooda adduunyo aakhirada qofku dantiisa isaga qabsada nina uma qabto fikradda dantayda cid kale ay qabato inay iloobaan oo tooda u jeestaan oo isku aaminsan dadkooda iyo dalkooda waxaan ilaahay ka codsanayaa inaan isugu soo noqono nabadgelyo su'aashaadi haddaan u leexdo waxaa isugu imaanaya sida aan ka warhayno madaxda geeska Afrika abaaraha amaba hor u dhigidda dhaqaalaha sheekuba jiro waa arrin fiican waxaan rajaynaynaa in la isku raaco la isku afgarto ay uga faa'iideystaan sidii wax looga qaban lahaa khilaafaadka ku dhex jira dalalka xubnaha ka ururkaasi qaarkood waxba kama sheegi karno hadda sababtoo ah waxaatan ka hor ma aynan jirin tala ah arrintu waxay ku xirantaa la dagaalanka abaaraha iyo horudhigidda dhaqaalaha wixii ka soo baxa ragaduusiimada waa ka soo bixi karaan laakiin hadda ka hor wax la soo qaaday ma jiro jal madaxweyne ma laga yaabaa in shirkaas kadib ay booqasho rasmi ah kaaga bilaabato dalka jamhuuriyadda Jabuuti waa marti qaaday dawladda Jabuuti waana filayaa anna waa ka aqbalay hadda waxaan moogna nagu imaanin waa filayaa saas noqono madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigaasi ballaaran ee uu hogaaminayo waxa gegada dayuuradaha ee magaalada Muqdisho ku sii sagootiyay si galgacaltooyada madaxweyne ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar iyo Jale Xuseen Kulmiye Afrax Jale Ahmed Salmaan Cabdallah xubinka guddiga siyaasadda iyo Jale Ahmed Maxamuud Farax Xusna xubinka guddiga siyaasadda ee golaha dhexe gudoomiyaal hoggaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole iyo saraakiisha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo dadweyne aad u tiro badan oo Soomaaliyeed isagoo halkaasi madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jale Siyaad hal u sii gacan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre waxa uu markaasi ka bacdi uu koray diyaaradii Somalia Airlines shirkadaasi ay lahayd ee uu qaadisay magaalada Jabuuti isaga oo sii gacan haadiyay dhammaan madaxdii iyagoo si sagootinasay diyaaradii markii ay kacday ayaa waxay si habsamiyo u dulmartay sida aad u daawanaysiin caasimada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ee Muqdisho oo bilicsamideeda aad arkaysiin sawir qaaday Cabdiraxmaan Aadan Cumar Kawnda ayaana sawirkaasi guud ahaan iyadoo diyaaraddu dulmarayso magaalada Muqdisho isagoo ka qaaday iyada oo ummadda Soomaaliyeed si aad ugu faraxsanayd shirkaasi uu ka qayb galayo madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigaasi ballaaran ee uu hogaaminayo kaasi oo isagu dan u ah ummadaha ku dhaqan iyagoo geeska kan Afrika